waa maxay qaansaar? Magaalo madax bannaan, dagaallo qabiil, siyaasado qarsoon iyo halyeey la yiraahdo Deva oo ka soo dhex muuqda burburka. Haddii aad daawatay filimka Salaar, su'aasha kugu soo dhacday ayaa waxay tahay magaaladan dhab ma tahay mise waa mala'awaal? Maanta waxaan idiin soo bandhigayaa xaqiiqda dhabta ah ee ka dambeysa sheekada filimka Salaar. Filimka Salaar oo uu agaasimay Prashant Neel isla markaana uu jilayo aktarka caanka ah ee Baravas waa filim ka hadlaya saaxiibtinimo isu beddeshay cadaawad. Wuxuu inoo muujinayaa magaalo la yiraahdo Qaansaar, magaalo madax bannaan leh nidaam siyaasadeed iyo bulsho u gaar ah. Sheekadu waxay u muuqataa mid dhab ah, laakiin maxay tahay xaqiiqdu? Qaansaar magacaasi ma ka mid yahay magaalooyinka ka jira Pakistan mise Gujarat mise guud ahaanba India? Jawaabtu waa maya. Qaansaar waa magaalo si buuxda loo curiyey, wax xiriir dhab ahna lama laha dhul jira. Waa fikrad hal abuur ah oo uu sameeyey qoraaga iyo agaasimaha si uu u dhiso adduun u gaar ah. Waxaa lagu sheegay in Qaansaar ay tahay meel ay leeyihiin reer qabiilyo ah oo leh nidaam madax bannaan, laakiin taasi waa dhismaha dunida mala'awaalka ah. Adiga weli ma isweydiisay waa maxay ujeeddada laga leeyahay magaaladani mala'awaalka ah? Magaalooyinka sida Qaansaar waxay filim sameeyayaasha u siiyaan xorriyad buuxda inay ku dhisaan siyaasad cusub, inay abuuraan hogaamiye awood badan, ama inay la xiriiriyaan sheekooyinka kale sida Salaar iyo KGF. Halkaas ayay ka dhalataa su'aashii kale ee xiisaha badneed ee Qaansaar ma la xiriirtaa filimka kale sida KGF. Waxaa jira tilmaamo muujinaya in filimada KGF iyo Salaar laga yaabo inay ka dhacaan isla dunida. Waxaa la sheegaa in Baravas iyo Rocky Bai ay yihiin kuwa ku wada tirsan hal cinematic universe, yacni hal studio ka wada shaqeeya. Tani waxay sare u qaaday xiisaha filimka, waxayna daawadayaasha gelisay su'aale yaa noqon doona kan ugu awoodda badan. Ugu dambeyn, sheekada Qaansaar waa mid mala'awaal ah laakiin si qurux badan loo dhisay. Waa tusaale ka mid ah sida fanka iyo filimada loo adeegsado si loo abuuro adduun cusub, loona geliyo daawadayaasha sheekooyin qoto dheer. Haddii aad xiiseynayso filimada noocan ah, fadlan subscribe dheh, siina share gare oo igu reeb fikirkaaga commentiga. Magaalooyinka mala'awaalka ah ma noqdaan kuwa ka saameyn badan kuwa dhabta ah? Subscribe inoo taabo si aad u hesho doodaha filimada ugu xiisaha badan. Channelkani wuxuu kuu keenayaa xaqiiqooyin ka qarsoon Bollywoodka iyo Hollywood.